السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walbood iga daawanaysid hadda maanta waxaan wadaa su'aalo ama fikro aan doonaya inaan idinla wadaago oo ku saabsan jacaylka in badanna dad isoo weydiiyeen tusaale ahaan qof buu xidhiidh idinka dhexeeyaa qofka xidhiidhku idinka dhexeeyo adigaa jecel inka badan inta uu isagu ku jecel yahay maalinkii dambe xidhiidhku kuu jaray oo qofkii wuu kaa tagay waxaad ku kaliyowday jacaylkii ama xidhiidhkii idinka dhexeeyay baad kali ku noqotay adigoo ku jira xaalad aad u adag baa waxaad isbarateen markiiba qof kale oo ku doonaya ku siiyana jacayl oo ku jecel waad ilowday qofkii hore eed horey u jeclayd isla markiiba oo waxaad la jaan qaaday oo la bilowday jacayl cusub qofkan su-aashu haddaba waxay tahay adigu ma qofkii horaad jeceshahay mise qofkan dambaad jeceshahay su-aasha labaadina waxay tahay adigu ma qof baad jeceshahay ku calaamadsan oo gooniya mise waxaa tahay qof jacayl raadiya su-aasha koowaad jawaabteedu waxay tahay adigu labada qof kii hore iyo kii dambe midna inaadan jeclayn oodan jacayl dhab ah u haynin jawaabta labaadina waxay tahay adigu qofna ma jeclid qof gaara oo ku astaysan ma jeclid ee waxaa tahay qof jacayl raadiye ah muhiim ma aha kii koobaad kii labaad 10 kale oo ka dambaysa hadday yimaadaan mar walba waxaad doonaysaa qofka adiga jacayl ku siiya kaasaad agtiisa naxariis ku dareemaysaa iyo nasteexo jacaylku waa sida wax walbaba oo dunida yaalla waxaa la yidhaahdaa wax bixi waxaa ku soo galaanay marka jacaylka markaad doonaysid waa inaad adna qof wax bixisid si wax kuu soo galaan jacaylka bixi jacayl baad helaysaa dib u helaysaa ta kale waxaa weeyaan qofkaas waa sida saarka geedka la yidhaahdo ama marmarka la yidhaahdo geed la-aan ma baxo geedka geedaha saa iskugu marmaraa geed la-aan ma baxo geed buu ku dul baxaa oo isku marmaraa hadduu waayo darbi buu ku baxaa guri buu ku baxaa wax la-aantiis ma baxo geedkaas wax la-aantii ma istaago marka adu waxaa tahay qof sida saarka ama geedka marmarka oo kale ah aan keligii meel istaagi karaynin raadinayo qofuu ku tiirsada markasta raadinayo qof jacayl siiya aaminsan gudihiisu inay madhan yihiin u baahan qof qalbigiisa maaragtay madnaanshaha ka jira u buuxiya qof walba oo aad kala tagtaanna waxaa tahay qof eedeeya marka uu qof xidhiidh la yeesho ku tilmaamo qof walba uu xidhiidh la leeyahay inuu jecel yahay marka ay kala tagaan oo xidhiidhkaasi noocuu doonaba ha ahaadee uu soo dhammaadana ku tilmaamo adigu inaad tahay dhibanaha isna uu yahay qofka dhibaatada kuu geystay qofka ku khiyaanay qofka beenta kuu sheegay jacaylku dhinacaaga inuu 100% ka ahaa isaguna jacaylku dhinaciisa marba uu hoos u soo degayay ilaa uu gaadhay markii dambe eber naqsiga adigu aad dareemaysid aad aaminsan tahay waxaad ogaataa cid kaa saari karaysaa inaysan jirin cid kuu buuxin karaysa inaysan jirin haddaadan adigu wax bixininna wax iska kaa soo galaya ma jirto waxaa la yidhaahdaa xagla laaban xoole kuma yimaadaan gurigaaga haddaad iska dhex fadhido oodan ka bixin oodan shaqaysanin oodan cuntada soo karsanin wax kuugu imanaya meesha ma jirto lacag kuugu iman mayso cunto diyaarsan oo karsanna kuugu iman mayso sida si leeg jacaylkuna jacayl markaad qof heshid eed xidhiidh la yeelatid qofkaas haddii adiguna jacayl aadan siin weligii isagu jacayl kuma siin karayo kaa daalaya jacaylku waa isweydaarsi iyo isdhaafsi su-aal kale oo iyana la isoo weydiiyey qof baa wuxuu yidhi qof baan aad u jeclahay umana sheegan maxaan sameeyaa ma u sheegtaa mise waan iska aamusaa haddii aad qof aad u jeceshahay ilaa xad aad jeceshahay qofkaana jacaylka aadan u sheeganin anigu waxaan ku dhihi lahaa u sheego qofkaa jacaylka aad u qabtid hubsa marka hore dareenkaaga waxaanuma jacayl baa ma damac baa ma ka helitaanba xayla in badan waxaa iskaga keen jira jacaylka iyo damaca iyo ka helitaanka marka aad hubsatid hubsiimuhuna ma aha wax maalin ama saacado yar ama daqiiqado yar fikirkaagu wuu isbedelayaa xaaladaada nafsiyadeed ama muudkaagu wuu isbedelayaa u kaadi sug isbuuc 2 isbuuc 3 4 bilba iska sug haddaad rabto ogow waxaan ku hayaa inuu jacayl yahay iyo in kale marka aad hubsatid waxa ku hayaayo inuu jacayl yahay u sheego qofka aad jeceshahay wadada ugu quruxda badan ee isleedahay qofka waad ugu sheegan kartaa oon xoog iyo qajajac ahayn maxaa la jacaylku xoog maaha jacaylku waa xornimo
u sheego. Qofka markaad u sheegatid laba natiijo mid baad kala kulmaysaa ama laba jawaabood mid baad ka helaysaa. Ta koowaad oo ah in uu qofkaasi kula ambaqaado jacaylka aad u sheegatay oo xiriirka kaa ogolaado. qasab maaha sidaad u jeceshahay inuu kuu jeclaado, maxaa yeelay adigu horey baad qofkan u jeclayd, isagu hadduu anbuu kula ambaqaadaya wax kula bilaabaya. Marka qofkani inuu xiriir kula bilaabo oo ah sida aad doonaysay. Ta labaadina waxay tahay inuu ku dhaho qof baan xiriir la leeyahay ama kuma doonayo ama xiriir diyaar uma ihi, waxay rabtaba ha ahaato, diidmo uu ku dhaho xiriir kulama yeelan karayo. Ta koobaad haddii ay dhacdo inuu kula ambaqaado waa sidaad doonaysay, waa ili dhaho ardaaga u bood. haddii uu kula ambaqaadi waayo oy ta labaadi dhacdana intaad ka fikiri lahayd waad ka quusanaysaa qofka, waxaad bilaabaysaa inaad ka goosatid ood ka quusatid. Su-aashu waxay tahay haddana haddii qofkan jacaylkaaga aadan u sheeganin eed iska dayso uurka iskaga haysato weligaana iska jeclaato, maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya dhibaato badan baad kala kulmaysaa. waxaad samaysanaysaa khayaalkaaga ama qiyaastaada ku samaysanaysaa adduunyo yaroo idin gaara, labadiinu aad ku nooshihiin, 10 ciyaala ama 100 ciyaala aad isu dhasheen, jacaylka aad sidaa isula qaadaa dhigaysaan, janna adduunyaad baad iska qiyaasanaysaa. markaad maskaxdaada muddo ku soo celceliso, waxaa la yidhaahdaa maskaxda aadamuhu wax kasta oo lagu soo celceliyo 3 isbuuc 4 isbuuc ilaa iyo 2 bil ama 2 bilood adigu, wax kasta oo lagu soo celceliyo laga fikiro maskaxday degaan, caqliga qarsoon bay degaan. wixii caqliga qarsoon degana waxay ka mid tahay wax kula nool. marka haddii aad riyada noocaas iska dhisatid adiga halkaa dhib baa kuugu sugan. waxaa fiican qofka haddiiba aad qof jeceshahay, jacaylkaas uu yahay jacayl hal dhinaca, horeyba inaad uga sheegatid. markaad hubsatid dareenkaaga qofka inaad u sheegatid. heshay qofka ama weyday, jacaylkuna qasab ma aha. haddii uu ku dhaho qofkaasi anigu kuma doonayo, xiriir kulama samayn karayo, qof kalaan jeclahay, siduu doonaba ha ahaado, haddii qofkaasi uu ku diiday inuu xiriir kula yeesho, kama dhigna qofkaasi inuu yahay qof xun. sida aad adigu xor ugu tahay dareenkaaga qofka aad doonaysid inaad jeclaatid, sidaas la eg buu isna xor ugu yahay qofku doonana inuu jeclaado, ku doonana inuu diido. haddiiba aad wax jeceshahay oo jacaylkaagu dhab yahayna, jacaylka dhabta ah waa xornimo. si qofka aad jeceshahay xornimo buuxda. su-aal kale, qof baad si dhaba isu jeceshihiin ama waxaad tahay qof reer leh oo ay qof wada joogaan, waxaa idinka dhexeeya jacayl dhaba, noqo lamaana isqaba ahaada ama 2 qof oo jacayl ka dhexeeya ahaada. jacaylku dhan buu ka weeqmay oo qof baa bilaabay dib u guratayn inuu sameeyo ama ka laabto jacaylkii. maxay tahay haddaba tallaabada kuugu habboon eed qaadi kartid marxaladda iyada ah si aad uga baxdo? waa isla jacayl kuugu kaliyoobay ama ahaw 2 qof oo isqabta ahaada ama 2 qof oo isjeclayd ahaada, jacayl kaliya iyo haasawo uu ka dhexeeyay ahaada. mar walba waxay noqonaysaa jacayl kuugu kaliyoobay. tallaabada koowaad eed qaadaa ha noqoto inaad ogaatid sida ay wax u jiraan. qofkan sababta keentay inuu jacaylkii kugu kaliyeeyo, kugu cidleeyo, kaaga baxo, sababta keentay inaad ogaatid. si dhab ah markaad u ogaatid sababta keentay, waxaad bilowdaa in aad xal u raadisid. xalka markaad u raadisid eed ficilkii la timaadid, rabbi tala saaro, ilaahay talada u dhiibo, istikhaarayso. ilaahay qofka subxaanahu wa tacaala haddii uu khayr kuu yahayna inuu ilaahay qalbiyadiina isu soo dumo, hadduusan kuu ahayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga ka saaro weydiiso. la imow xal sidaad ku xallin lahayd dhibaatada ama sababta kaliftay qofkani inuu kaa dheeraado. xalkuna ma aha markaad xalkii la timaadid oo qorshihii dejisid aad wax ku xallin lahayd, maalin iyo 2 waxba kuma xallismaan. waqti fiican qaado, isku day inaad xallin kartid wado walba oo suurtagal kuugu ah inaad wax ku xallisid. ha isdhihin oo eedda isaga korka ha kaga tuurin oo ha isdhihin isaga unbaa khaldan. adiguna waxaad isweydiisaa maxay tahay waxa aadan adigu ku baraarugsanayn eed ku samaysay qofka kale kalifay inuu kaa dheeraado. maxay tahay? ogow dhaliisha aad leedahay, kadibna bilow inaad iska toosiso. markii aad ogaato dhibka jira, dhaliishaada aad ogaato, ficilka aad la timaado, rabbina aad tala saarato, istikhaaraysato, aad ducaysato, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku habaabin maayo
oo wuxuu kugu ridi wadada saxda ah taasoo ah qofkani haddii uu khayr ku yahayna in ilaahay qalbiyadiina isku soo dumo haddii uusan ku ahayna adduunyada waxaa ku nool ku dhawaad 8 bilyan oo qof ilaahay wuxuu ku siin bedel khayr qaba qof garta qiimaha aad leedahay adiga oon dhihin waxaan ahay dhibane adiga oon eeda dusha kaga tuurin xiriirkiinu markuu dhamaadana waxaad bilowdaa haddii ay dhacdo weeyaan oo xiriirkiinu dhamaado haddii uu hagaago waa alxamdulilah haddii uu dhamaado waxaad bilowdaa noloshaada hore usii wado ha ka quusan ha dhihin jacaylku waa been kani waa kan halkaas ha dhihin halkan haddaan isla soo gaarnay ood videogan dhamaysatay waan kaaga mahadcelinayaa muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsi ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragto qaybta hoose ee faallada noogu reeb su-aalahan aan ka jawaabay waa laga yaabaa dadku way kala aragti duwanaan karayaan anigu wixii iiga aadan aragtidayda un baan la wadaagay adigana wixii aragtidaada hoos ugu reeb maxaa yeele dad baa isoo weydiiyey oo u baahan jawaabaha inay helaan waynoo muuqaalka kan xiga insha allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha ilaawin muuqaalkan waxaa jira su-aalaha ku jira jawaabahooda dad in badan raadiya oo u baahan fadlan la wadaag dadka aad taqaano iyo asxaabtaada intaba nabaday